بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إنا لله وإنا إليه راجعون وأنا مركه هريتها سي أدري دمان dadkii ku geeriyooday mudaharaadyadii ka dhacay magaalada Baydhabo oo ugu horeeyay walaalkeen qaaliga ah Allahu naxariistee xilban Abdishakuur Yaaqoob Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ugu baryaynaa asigiyo shacabkii kale ku geeriyooday meeshaas جنة الفردوس إن إلهي كي وحنا الله دمان إهلدي قرابدي يا حسابتي وكجير يودينا ما يكتجن صبري إيمان الله ينقصيه وحنا هل كان يقول تعسين يا دمان دتكي داوعيدي يو قصارها كسوجاري دعاداس أما مظاهراتي كدعاي ما ممكن فرق البلد caasimadiisa ku meel gaarka ah magaalada Baydhabo waxaana ugu baaqaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Ali Khayre iyo dhammaan xildhibaanada iyo wasiiradii ka yimaaday maamulka Koonfur Galbeed in ay gurmad degdeg ah oo caafimaad ah la gaarsiiyo dadkii dhaawacyada ku soo gaaray mudaharadaas runaantii haddii taariikhda maamulka Koonfur Galbeed aan wax yar aan ka yiraahdo maamulka Koonfur Galbeed waxa loo soo maray dhibaatooyin aad u badan dhismihiisa in la dhiso iyo inuu xeerkan uu soo gaaro runtii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool maamulka Koonfur Galbeed in ay u istaagaan sidii ay u ilaashan lahaayeen nabadgelyadooda iyo xasiloonada maamulka Koonfur Galbeed waxaan kaloo rabaa inaan la wadaago shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa jirta arrimo siyaasadeed runtii ay ku soo ziyaaday guddoonka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo runtii aanu ka tirsanahay guddi ka kooban golaha shacabka iyo guddi kale oo golo wasiir ah oo kamid ahay ayaa maalmahan habeen iyo maalin waxaan juhdi badan aan ku bixinaynay sidii xasilooni siyaasadeed loogu heli lahaa guddoonkeena golaha shacabka runtii oo aan anagu dooranay shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta runtii waxay ahayd maalin aad u qiimo badan inoo suurta gashay in gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen in ay kulmaan ay wada fadhiistaan ayna kuna kulmaan Hotel Paradise taasoo ku soo dhamaatay isfaham Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu dalka siyaasadiisa u dajiyo runtii Ilaahayna uu na gaarsiiyo barwaaqo bashbash hiigsigeena uu yahay in la badbaadiyo dalka iyo dadka iyo diinta taasoo na ahayd dhaartii aan u dhaaranay shacabka Soomaaliyeed waxaa kaloo rabaa insha Allah ta'ala inaan la wadaago fursadan ugu faa'iideysto oo ah waxaa maanta runtii baraha internetka ku jirtay arrin ku saabsan in wasiirka gaashaandhigga uu iscasilay nasiib daro in arrinkaasi runtii aan ka maqalno idaacadaha ama baraha internetka oo shakhsiyaad oo kaligiisa dacayad asigoo ula jeedo barnaamijka noo fidanaayay waxaan idin leeyahay warkaasi waxba kama jiraan waana been abuur runtii waxaan ka shaqaynaynaa oo aniga iyo tiimkeygii oo ama aan kamid ahay golayaasha shacabka ama aan kamid ahay cabinetka ama golaha wasiiradaba sidii xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jira loo dejin lahaa sidii isfahan siyaasadeed u dhici lahaa sidii runtii hiigsi ayaan leenahay oo hiigsigeena aan u gaari lahayn ummadda Soomaaliyeedna dhibaatadii iyo rafaadkii ay ku jirtay aysan dib ugu laabanin ay soo martay ujeedkeenana uu yahay insha Allah ta'ala inuu dalkaani meel fiican u gaaro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh